السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحنينا مرتية مدالو شيكري صلوات وناقا سميسو أديق أيها إسكالي شركة هذا ملايكتنا أديق أيوك سوغيا وقت هوري أيها هو يكوغ رعسين ترتي عروبتي صباح والبا رودي داسي وحا صباح والبا ديراس كو هانجري حبة رودية حبة داسي رودية oo ay hooyadani ugu tala gashay dadka masaakiinta iyo dadka safarka ee magaalada Soomara maalin kasta waxa bartay oo guriga Soomara oday miskiin ah oo xabada roodida ka qaata meesha loo dhigo laakiin odaygani marka uu qaadanay xabada roodida waxa uu raaciyaa hadal oo waxa uu yiraahdaa khayrka aad kasbataa adiga ayuu ku anfici sharka aad maleegtaana adoo ku sugaya subax kasta marka odaygani roodida qaadanayo waxa uu oran jiray hadalkaasi kadib hooyadii ayaa u adkaysan weyday oo xamili weyday hadalkiisa macnaha iyo ujeedada uu uga golnayahayna fahmi weyday kadib waxa ay samaysay way eriday odaygii laakiin isagu kama tago oo waa ku soo noqnoqda iyaduna waa ay dhibsatay odaygana ay eriday ee kolba ku soo noqnoqonaya kadib waxa ay go'aansatay inay sun ugu darto roodida oo ay ka takhalusto odaygan waxa ay islahayd cid ku raaci mayso oo waa miskiin oo qof kasta waxa uu moodayaa inuu iskaga dhintay laakiin dib ayay ka dareentay alla ka cabsi roodida sunta ku diyaarisay waa ay gubtay mid kale oo fiicanna waa ay diyaarisay oo waxay u saartay meeshii uu miskiinku ka qaadan jiray odaygeena sidii caadada u ahayd ayaa uu meeshii soo maray oo xabadiisa roodida ahaydna waa uu qaatay hadalkiisa yaraana waa uu tuurtay ee ahaa khayrka aad kasbataa adiga ayuu ku anfici doonaa sharka aad maleegtaana adiga ayuu ku sugayaa kilinkii dambe markii la gaaray ayaa waxa guriga ku soo qaraacay hooyadii wiilayn badanba sugaysay oo safar kaga maqnaa kadib waa ay faraxday oo farxad bay kala badbadatay waxay sa aragtay wiilkii oo rafaad badani dushiisa ka muuqdo aadna u soo dhibaatooday kadib waxay weydiisay hooyo maxaa kugu dhacay waxay tiftan ka muuqataa waxa uu ugu jawaabay hooyo safar dheer ayaan soo galay wixii aan hanti soo shaqaystana tuug ayaa iga dhacday aniga oo naftu yahayso ayaa ilaahay ii bixiyay oday miskiin ah oo waxa uu siiyay xabad roodi ah oo aan nafta ku ceshado hooyadii naxdin gariir ayaa ku dhacay oo waxa ay ka naxday inay dhimashada wiilkeeda iyadoo sabab ay u noqon lahayd haddii ay siin lahayd roodidii sumaysnayd odaygan waxayna soo xasuusatay xikmadii uu odaygu maalin walba marka uu roodida qaadanayo ku celcelin jiray ee ahayd khayrka aad kasbataa adiga ayuu ku anfacaya sharka aad maleegtaana adiga ayuu ku sugayaa haddaba daawadi dulucda sheekadu waa ciwaanka sheekada